السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشنا كحران جنالك أحمريج أوفيشيال كسو دوادا برنامج كنا مانتا هدي آل لعق بدن هيستي تاس معنى يدو ما أهان إنيسان لعق تاسي بابي كرينين أما سماما مالماها كمدا إينا كادمان كرينين صوبتو سيدا لعق لو كسبدوي أدك تهاي هساهاتي سيدا لعق لو بابيو ويفضو تهاي مداسي تصالي هدا أيانو مانتا برنامج كنا كسو قادان دونا داوديال عياريانو مركي هور اسكوغو دبا دعدي أو إلهي كمانيستي مال أدون لعقتي إيمالكي سيدا دونا أو استعمالي إيغو أمالينين لعق maalin maalmaha kamid ah ay ka dhamaan dooneen ugu dambeyn masiirkoodii uu ku dambeeyay lacag la'aan iyo inay noloshoodii dib ugu soo noqoto meeshii bilowgii noloshoodii ay ka hana qaadeen emailka hooseesa muddadaasi nolosha u wacnayd waxay qaadan jireen mushaaro kuwii ugu badnaa oo qof la siiyo qaarkood ayaa u isticmaaleen kutumasho iyo inay si xun u adeegsadaan maalkaasi Ilaahay siiyay xagga qaarkood ay ku qaldameen lamaano qaa'imiin ah halkaasi ay xaaladoodu ku noqotay dhibaato aan ka soo kabsasho lahayn daawasho wacan daawadayaal barnaamijkeena oo dhameystiran haddii uu ku qanciyo inaad ka helmaamin like iyo subscribe شاكرا فيديو أنا سيدو ضد بدن أقارو مها السنة ciyaaryahanka ugu horeeya aan barnaamijkeena ku soo qaadan doono waa Paul Guskani ciyaaryahan bilowgii 2000 aad ugu soo dhex muuqday ciyaaraha kubadda cagta isagoo markaana la soo banbaxay ciyaaro heer sare ah wuxuu ciyaaryahanka markuu kubadda qabsado aad ugu adkayd in laga reebo kubadda wuxuu guulo waaweyn u soo hayay una magac ku dhaxyeeshtay kooxaha Tottenham Newcastle iyo Lazio ninkani ayaa noloshiisa waxa hoos u dhigay oo baabi'iyay cabida qamriga intaasi waxa dheer dhibaatooyin fara badan uu u geystay dadyo badan kadib markuu qamriga uu aad iskugu dalgalay taasi oo sababtay in karaamadii sharaftii uu lahaa waliba marar badan uu ku manisto ganaax sida in la qabto asagoo cabsan amaba inta asagoo cabsan oo gaari wada uuna ku geystay dhibaatooyin sida inuu gawaari kala ku jiro ama meelo qaldan u dhigo intaasi waxa u dheereed inuu xaaskiisa gacan u qaadi jiray meelo public ah oo dad badani ay joogaan ninkani cabida qamrigu meel xun ay ka gaartay heer inuu ciyaarta soo xaadiro isagoo cabsan taasi oo sababtay in ciyaarta laga saaro ciyaaryahankan kubadda cagta ayuu ka fadhiistay 2004 wuxuu isku dayay inuu noqdo dad xayisiya ama baka faalooda ciyaaraha kubadda cagta saate isku daygaasi waa uu guuldareystay sababo ka haystay cilado dhawaqa codka awgii arimaha kubadda cagtu markay ka soo xirmeen wuxuu isku dayay habab kale uu lacag ku sameeyo waxay ugu dambeyn la gashay qamaar iyo darooyin ilaa iyo guud ahaan lacagtiisu ay ka dhamaatay heer xaaladiisu gaartay inuu wadooyinka jiifto isagoo faramaran xitaa aan haysan wax wanaagsan u xirto intaasi kadib warkiisu wuxuu gaaray ciyaaryahano isugu jira kuwii hore iyo kuwii dambe wuxuu xoogaa dhaqaale ah iska aruuriyay sida ninka u guri u dajiyaan dhowr ciyaaryahano uu ka mid yahay Rooney Gerrard iyo John Terry iyo Gary Lineker saaxiibadiisa ninkani u dhow ayaa waxay sheegeen inuu 14 milyan oo euro ku qasaariyay qamriga iyo darooyinka iyo mashaariic guuldareystay ilaa uu ku dambeeyay faqiir aan waxba haysan oo jiifta darbiyada magaalada London ciyaaryahanka labaad ee aan barnaamijkeena ku soo qaadan doona waa Emmanuel Ebo wuxuu ahaa ciyaaryahan ka soo jeeda Ivory Coast halkaasi ayuu ka soo bilaabay xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta wuxuuna waqtigaasi ka tirsanaa koox yar oo la yiraahdo ISBC Minmouse muddo kadib wuxuu u wareegay wadanka Belgiumka iyadoo ay sabab u ahayd inay noqoto xirfadiisa mid heer sare ah wuxuuna muddo yar kadib ku biiray kooxda Arsenal wuxuuna noqday ciyaaryahan la yaqaan oo magac iyo maamuus leh hantidiisu ayaa marba mar ka dambayso kor u kacday wuxuuna noqday in milyaneer ah asaate muddo kadib wuxuu caashaqay gabar cadaan ah gabadhiina waxay isguursadeen 2004 mar uu wareysi siinayay isagoo ku sugan wadanka Turkiga warbaahinta Mirror ee laga leeyahay dalka Britain sanadka markuu ahaa 2017 ayuu wuxuu ka waramay qisada dhex martay isaga iyo xaaskiisa wuxuuna yiri yaraanteeda si fiican wax maanan u baran arintaasi oo sababtay inaan arimaha dhinaca maaliyadda ku aamino xaaskayga waraaq kasto ay ii soo hordhigto ayaan iska sii xijiray anigoo isweydiinaynin in ahmiyadeeda ay tahay waxa uu yiri inta aan ku sugnay dalka Turkiga aan u ciyaarayay kooxda Galatasaray sanadkii waxa aan ka qaadan jiray lacag 8 milyan oo euro 7 milyan oo euro oo kamid ah ayaan u diri jiray xaaskayga iyo carruurteeda sidee lacagtaasi u maareyso ugu dambeyn hantideeda oo idil bay la wareegtay hata waxaan ku jira maqsiim yar oo kiro ah ma ogi goortu ay askartu ii imaan doonto maqsiimkaasi iga dhex qaadi doonto marka qaar waxaan damiyaa leerka si aan wajigayga loo arag oo loo aqoonsan inaan qolka ku jiro hari habeen cabsi ayaan ku seexdaa oo ku soo toosaa mana ogi goorta ay booliska ii imaan doonaan ina i qaban doonaan waxaan si xushmad leh gargaar ugu dalbanayaa qof walba oo i caawin karaya sidoo kale kooxdeedii hore Arsenal haday i qaadan karayaan diyaar baan u ahay inaan u ciyaaro markuu dhibkiisa caalamku ogaaday markii uu horeysay waxa soo caawisay kooxdiisii hore ee ka dhisan wadanka Turkiga ee Galatasaray sidoo kale dalka Turkiga gudihiisa ayaa laga siiyay waxa la yiraahdo shaqo tababarnimo waad ku mahadsantahay inta aad la joogtay daawada barnaamijkan iyo barnaamijka xiiso badan ayaa idin soo diyaari doona hadduu alla idmo waxaan ka codsanaynaa haddaad fiidiyogan dhameysatay naga hilmaamin like iyo share iyo subscribe-ka waad mahadsantahay